ابتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. فما ظنكم بالنجل عند جزاء أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. walaalaha waxaan la wadaagaynaa insha Allah barnaamijkii noo socday jalsada waa tii saddexaad amaba aan dhaho markii imtixaanaha la dhaho tii saddexaad laakiin fadhi ahaan fadhi baa ka horreeyay. walaalayaal barnaamijkeennii ahaa aan ka soo sheekeynay caruurta maxaa keen inay wax baran waayaan qur-aanka baran waayaan. waxaan isleeyahay qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa waalidka Soomaaliyeed inuusan sugnaanin hataa hadduusan madraso fiican helo. waxaa bilmunaasaba in la barinta caruurta dhaleen inta badan xagga qur-aanka waxa maalmahan dambe caruurta geeyo ama madaarista geeyo ama maxaa dugsiyada geeyo hooyooyinka weyaan. hooyooyinkana inaysan qiimeynta madarasada caruurta ay geeyaan inaysan aada u qiimeyn karin. inta badan waa waalidiin yar oo aada u yar oo laga yaabo canuga hor socodkiisa inuu muxuu ahay fiican yahay, laga yaabo inay la socdaan, laakiin inta badan waalidiinta ma qiimeyn karaan canugan madrasada ku fiicnaaday mise kuma fiicnaan. marka cilada saddexaad ee keenayso canuga inuusan qur-aanka dhameyn waayo waxaa weeyaan cadamu thubuut. canuga in waalidka inuu sugnaado uu hal meel ku sugnaado, haddii macalinka uu la shaqeeyo hal madrasana ku sugnaado, waxaa aada u dhow macalinkaasi ardaygaas inay isfahmaan, akhiiran isla qabsadaan, qur-aankana isla dhameeyaan oo canuga qur-aanka loo dhameeyo. laakiin ciladaha taagan waxaa ka mid ah canuga in la sugin oo hal meel muxuuha uusan ku sugnaanin oo la warwareejiyo. dugsiyaa la geynaya, waa laga saaray xaafadda tuushin lagu qabanaya, haddana waa laga saaray dugsi kale la geynaya. canugi markaa si loo wareejini asoo laga yaabo haddana inuu canuga iska mashquulsan yahay ee iskuulley waxaas dhigto. wareegaa badan canuga marka waxaa natiijada waxay noqonaysaa canuga inuu wareero. waxaad arkaysaa waalidiin badan oo leh ilmihii way wareereen, macallin ugey ku kale ugey kan kale ugey wuu soo celina, kan kale ugey wuu soo celina, kan kale ugey hoos uga soo bilaabo. inuu hoos uga soo bilaabo waxaa keenay macallin walba canug loo geey wuu imtixaanayaa. markuu imtixaanana wuxuu fiirinayaa in sheegay canuga levelkiisa ama muxuu ahaa mustawihiisa u fiirinaya. mustawa markuu fiirina macallinka go-aan uu qaadanaya. akhiiran waxaa dhacaysaa canugi inuu soo baxo waxbarasho la-aan. dhibaatada maxaa keenay? canugi wuxuu soo maray 2 sano 3 sano gudahood wuxuu isu marayaa 10 macallimiin oo kala tartiiba oo isku mustawa aan ahayn. marka macallinkan dariiqa ka qaado kan aad canug marka akhiiran wuxuu noqonayaa canug aan waxba u sugnayn, waxbana asaaska hataa aan ka dhisnayn. limaada? macallimiinta uu soo maray aada u fara badan, canugina wareeraya. waxaa marka fiican waalidka hadduu rabo ilmihiisa ay bartaan qur-aanka dhameeyaanna in uu ku dadaalo macallin fiican u raadiysaan soo sheegnay. kadibna markuu macallin fiican helo inuu meesha ku sugnaado, inuu halkaa ayada ku sugnaado. aniga hal madrasaan joogaa 2012 ilaa hadda kumanaan canugoo Soomaali ay soo mareen, laakiin wax ka takharuji oo ka baxe kuntumiyah deegaana way dadaaleen. waxaan isleeyahay waa inta sugneed, intaas keliya ka sugneed. inta kaloo dhan waalidiinta kaloo dhan caruurta intuu wad waxaad arkaysaa canug lagaa wado sanad bidaayadiisi lagaa wada, kadibna lagu keenay 2 sano kadib asoo meeshii taagan. marka waxaan leeyahay waalidiinta, waxaan leeyahay fashilka waalidiinta haysto macallimiintan ay u tiirinayan waxaa weeyaan inay canuga hal meel aysan ku sugin oo ay u sabrin. diinteennana arrintaas nafaraysa. ilahi subxana watacala wuxuu leeyahay fastaqim, ama xadiidka nabig alay slat slam wuxuu ahaa in camal haba yaraaday la mudaawameeyo, arrinkaa la joogteeyo. canuga hadduu maalin soomaalida waxay leeyihin subax iyo sadar yaa badan, subax iyo sadar yaa badan. hal sadar haddaad maalin walba dhigato laakiin aad joogtayso qur-aanka waa dhamaynaysaa. laakiin canuga wareejinta badan iyo sugnaasho la-aanta waxay keenaysaa in canugaas weligiis meelsan gaarin. marka waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinta waxaan ugu baaqayaa inay ka daayaan caruurta arrintaas, ay ka joojiyaan, caruurtooda ay isku dayaan intii tabartooda iyo intay agoodaan inay macallin fiican u raadiyaan. macallinkaasna ay ku daba joogaan.
هدي أنت سعيد عضو أين كسبران وحول مقصد كالوالد كليه كوين مقصد كان عنق القرآن كوبر تقول ما يوي وحياله عقبات خير أحد كوسو قلي هؤجوجين عنق هذا الصب هذا الصبنا ونصبر معلك دائم إن شاء الله تعالى عنق القرآن كذا وكون بين بإذن الله الباري إلهي أبو بري جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا.